السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبينا qiimaha badan ee ku xidhan barteena youtube-ka Cabdalla Deeqsi sidoo kale facebook page-keena Cabdalla Deeqsi waxaan maanta idin leenahay soo dhawaada duhur wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal halkan maanta barnaamijkii ayaan idin haynaa waa kee saaxiibayaal barnaamijkan maanta idin haynaa waa Sumaya Susu xaaska liicaate youtuberka ismir kala sanafalaha sidoo kalena aqoonsiyaga weyn akhyaartana ee bulshada sida weyn ugu dhex jira waa liicaate ninka aan ka hadlaynay xaaskiisa Sumaya Susu iyaduna sidoo kale la daalika sidoo kale qof akhyaarad si weyn ahay baraha bulshada ugu xidhan dad badan ay ku xidhan yihiin baraheeda bulshada sida qaar ahaan qaybtida TikTok iyo Instagram saaxiibayaal ayaa sheegtay inuu ilmahoodii urad house qiray arrintan ayay sheegtay iyadoo leef kaga jirta barta Instagram-ka sidoo kale Snapchat-ka ayay ku baahisay inuu ilmahoodii qiray oo waxa ku jira YouTube badan oo ah kamid yahay Saxaaf channel-ka ay ku qoran tahay Saxaaf channel amba adna seegida saaxiibayaal arrintan ayaa noqotay mid si weyn baraha bulshada looga hadlayo aniga maanta waxaan jeclaanay idin la wadaagno idinka maadaama aan ugu xidhan tihiin aan daawadayaasheena ku mid dadaalno kulba muuqaalka cusub ee xaqiiqada ah ee la soo dhigo oo aysan ku jirin wax been ah iyo wax barbaganda iyo wax cid gaar ah farta lagu godayo amba xumaan lagu badayo oo kaga hadlo xaqiiqada jirta iyo waxyaalaha waaqica saaxiibayaal haddaba saaxiibayaal halkan inta aan muuqaalka idin dhamaystirin waxaan codsi idinka gudbinaynaa inaad youtube-keena subscribe dhahdaan sidoo kalena u share gareysay saaxiibadina kale ee facebook iyo youtube sidaan wada ognahay wuxuu leeyahay share out iyo sidoo kale inaad subscribe ka dhahdaan intaba way idin banaantay sidoo kale Facebook waa kadaalika isaguna sidoo kale saaxiibayaal waxaan dareemaynaa in subscribe-ta iyo follow-duna aysan xoog u dhaqaaqin ama sidii loo baahnaa aysan u soconin ma garan karo xagga ay wax ka qaldayin comment-ga noogu reeba na dhiirigeliya saaxiibayaal aad baad mahadsantihiin halka casaanka ana naga cadayo subscribe-ta yar farta dhac ku sii gamaleelkan furo aad iyo aad mahadsantahay haddaba Sumaya Susu waa xaaska liicaate samafalaha youtuberka iyo qosliyaga weyn ayaa sheegtay inuu ilmahoodii curad oo si qiiray kadibna uu tagay halkii loo badnaa amba sahay hadalka u dhahday oo Ilaahay ka jeclaaday insha Allah ayay tiri noogu soo duceeyay mid kale amba aan anagu idin leenahay ugu duceeyay mid kale oo canug ka khayr badan kii hore Ilaahay inuu siiyo soo kalena hay helaan ubad badan oo baariya saaxiibayaal saaxiib maadaama dad musliman nahay boqolkiiba boqol sidoo kalena in nahay dad ka Soomaaliyiin dad walaalaha ama uliya diirkeeda waa inaad qofka marka ay dhibaato ku dhacdo ka diirnaxdo soo kalena u ducayso inuu Ilaahay dhibaatada ka dulqaado haddaba saaxiibka qiimaha badan ee muuqaalkan daawanaya iyo ka daawan doonaba iyo ka hadeer daawanaya waxaan idin leenahay walaalkeen iyo walaasheenba u duceeya inay Ilaahay siiyo ubad kale oo baariya maadaama ay ku wadi koobaad ay ku guul dareysteen saaxiib Sumaya iyo sidoo kale lii waxaan ogeyn inay sanad ka hor kala tageen kadibna ay kala maqnaayeen calafku waa caleemadooda ayay tiraa Soomaalidu oo waayo qofka hadaad calaf ku leedahay ma jiri karto cid ka hor istaagi karta iyo meel aad ku kala maqnaan kartaan haddana sanadkii tagay 2021ka ayay dib isugu soo laabteen iyaga oo ku midoobay farxad iyo reereyn sidoo kalena baraha bulshada si weyn oo qurux badan u qabsaday iyaga oo ku soo bandhigay jacayl anan mar hore iyo mar dambaba Soomaalida ku yar badankoodna aysan soo bandhigin haddaba arrintan ayaa si weyn baraha bulshada u soo jiidatay dad badanna way u duceeyeen balse alxamdulillah markiiba waxay Ilaahay ku arsaaqay uradkoodii oo haddan u siqiray amba waxaan sida Soomaalidu u dhahdo u caano doontay kaasi oo ahay dad badan ku riyaaqeen markay Sumaya qiratay inay uur leedahay balse toddobaadkan tagay ayuu liicaate soo dhigay inay xaaskiisu xanuunsanayso oo isbitaal ay ku jirto sidoo kalena uu Ilaahay uga baryayo inay caafimaad degdeg ah siiyo kadib waxaa dad badan duceeyeen kadib waxay sheegtay inuu ilmihii ka siqiray balse iyada ay caafimaadkeedu taamiyay saaxiibayaal intan ayaan maanta idin wadaagaynay saaxiib waxaan idin codsanaynaa video-gan la garsan saaxiibkeen iyo saaxiibtina u duceysan mahadsanidin